hal mar oo qura ayay wada maqleen dadka degmada Afgooye dhabeeqoy ku cusub oo isxigxiga kuwaas oo ahaa kuwa u moodeen qarax dadka deegaanka ayaa gabi ahaantoodba wada maqlayay laba gadi oo Afgooye ay ka kooban tahay ayaana laga dareemay dhabaqii weynaa ee dhanka qaraxyada ee ka dhacay gudaha degmada waxaana qaraxyadaasi ay ahaayeen kuwa dad badan dadku ay ku tirnayeen bam iyo waxyaabo lamid ah hay'ashee waa ay ka weynaayeen xalayto wixii dhacay waxa mar una markaasi la dareemay in wixii dhacay ahaayeen hoowiyaal oo Afgooye ku cusub saddex guri oo ku taala xaafadda Xawataako ayaa la sheegay inay ku dhaceen hoowiyaal kuwaas oo la tilmaamay inay ahaayeen waxyaabihii dhacay dhaawaca dadka ayaa la sheegay inay gaarayaan 14 qofood oo deganaa dadka saddexdaasi guri aan kor ku xusay ah dhaawacoodi ayaa la geeyay isbitaal Afgooye dhexdiisa ku yaala isbitaalkaasi oo ah isbitaalka Shamsuddin dadka waxaa la sheegay in wax lagu qaban waayay loona gudbiyay maanta magaalada Muqdisho dhama amiin ayaa wuxuu ka warbixinayaa arimaha ku aadan wixii xalay dhacay iyo booliiska wuxuu ka qabtay waa kan arintaasi ka hadlaya marka kulay waxaad maqasheen oo maleynaa inaad xalay magaalada hoobiyaal lagu soo tuuray hoobiyahaas waa jiraan waxaan soo tuuray nimankii nabadiidka ahaa waxaanu ku dhaceen nimadad oo shacab waxaanu ku dhaawacmay dad shacab ah oo guryo iska jiifa ay ku soo ayaa ku tulay alxamdulillah ilaahay maadiis dhaawac fudud ilaahay ka dhigay dhaawac fudud marka sidii ilaahay ciidanka booliiskana waa ku raadjoogaa waana la raadinaa meesha ka soo baxay meeshay ka yimaadeen waan ku raadjoogna waan ogaan doonaa hadii la ilaahdo mar dambe waa idin yeeri doonaa hadii wixii annaga aan warbixin aan hayna ama wixii aan soo qabanan hadii la ilaahdo waa idin soo bandhigi doonaa hadda waxaan ku waan ku dabjinaa saraakiisha ciidanka booliiska iyo amisom ayaa durbadii basaakayto lagu arkayay ayagoo dhex wareegaya qaba ka tirsan Afgooye waxaana ay markaasi sheegayeen inay raadinayaan arinta ku aadan baaritaanna ku sameynayaan hoowiyaashii xalaytay 6 gaarayay ee degmada Afgooye laga dareemay guud ahaan dadka deegaanka dhankooda waa ay ka yaaban yihiin hadii mar uu degmada Afgooye ka bilaabatay in madaafiici ka dhacaan hay'ashee waxa dadku deegaanka ku cusbaa dhabaqii xalay oo ahaa mid ka dugan dad badan ayaa booqday goobta xalay ay wax ku dhaceen maxamed saciid xalane Somali News TV Shabeellaha Hoose Afgooye